السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhowaada daawadayaal, ramadaan mubaarak. barakooyinka rabbi korkiina ha ahaatee. waa barnaamij aan ugu magacdarnay taxanaha noloshii saxaabada, kaas oo aan ku soo qaadan doono hal saxaabi. سلوا الكرامة في لقاء عدوهم وإلى الجنان حدتهم الأشواق فالأرض سجن والسماء كرامة ولأرضهم بدمائهم ميثاق للشام تهتز المآذن بالفداء فالله أكبر جيشها الدفاق والشام أجمل زهرة عاثت بها كف الليم وسامها الإحراق ذاقوا لأجل خلودهم ما ذاقوا أن يرجع العشاق سلوا الكرامة في لقاء عدوهم وإلى الجنان حدتهم الأشواق. zamankii uu noolaa rasuulku sallallahu calayhi wasallam, nimankii quraysheed waa ay dhibeen rasuulka. waxaa lagu amray inuu isaga tago magaaladii uu ku noolaa, uuna u hijroodo meelo kale uuna garanayn. waxa uu ka tegay dadkiisii iyo qaraabadiisii, xitaa dadka kuwa ugu jeclaa ayuu ka tegey. waxaynu maanta wax ka taaban doonaa saxaabiga suraaqa binu maalik radiallahu canhu. wakhtigaasi waxa uu ahaa mid aad u adag. rasuulka sallallahu calayhi wasallam wax kasta way u geysteen, aflagaadin jireen, way caydi jireen, xitaa waa waalan yahay ay dhaheen. rasuulku sallallahu calayhi wasallam ma uu ahayn mid xanaaqa, mid aargusda, laakiin waxa uu ahaa mid dadka ugu yeero dariiqa toosan. wakhtiga uu nebigu sallallahu calayhi wasallam uu ka baxayay maka, ma uusan haysan asxaab fara badan oo difaacda, ma uusan haysan hub badan uu iska celiya gaalada, sidoo kale ma uusan haysan maal fara badan, laakiin waxa uu haystay rabbiga awood badanaha ah. saaxiibkii abubakar sidiiq iyo rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa waxa ay gudogaleen in ay ka baxaan maka, iyagoo oo isku qarnay habeenka mugdigiisa si aan looga shakin ama aan loo soo dabagelin. rasuulka sallallahu calayhi wasallam iyo abubakar waxa ay ka baxeen magaalada maka habeen midow, iyaga oo ku wajahaan magaaladii madiina. gaaladii qureysheed maalin maalmaha ka mida ayaa waxay ku soo tooseen maxamed iyo saaxiibkii waa la waayey. waxa ay sameeyeen aqal kasta inay ka raadiyaan, iyagoo guryihii maka ku yaalay mid mid u baadhaya. abujahal oo ahaa gaalada midka ugu tunka weyn ayaa waxa uu tegay guriga abubakar sidiiq radiallahu canhu. gabadha u dhala abubakar asma ayaa u weydiiyey xaggee ayuu tegay aabbahaa. asma waxay ugu jawaabtay ma garanayo. waxa uu sameeyey dhirbaaxa ayuu wejiga ku dhuftay ilaa ay gabadha dhulka ku dhacday, isaga oo markaa ka xanaaqsan jawaabta ay siisay. abubakar iyo nebigu sallallahu calayhi wasallam waa ay socdeen habeenka mugdigiisa. abubakar waxa uu leeyahay, nebiga ayaan xagga hore ka marayey, haddana waxaan ka marayay xagga dambe, waxaan ka marayay badax iyo midig, aniga oo rasuulka ilaahay u diidan inay wax soo gaadhaan. gaaladii qureysheed waa ay ka raadiyeen meel kasta nebiga sallallahu calayhi wasallam iyo saaxiibka abubakar sidiiq. abubakar iyo nebigu sallallahu calayhi wasallam waxa ay soo gaadheen godkii qaaru xiraa, iyaga oo halkaa galay, iyaga oo markaa kula ballamay godka nin wadooyin kala yaqaano oo daxisho kadib halkaa ugu imanayay. gaaladii qureysheed waa ay isku dhex yaaceen, jahwareer ayaa ku dhacay markii la waayay nebiga sallallahu calayhi wasallam iyo abubakar. waxa ay isku diyaariyeen in ay nebiga baadi goobaan, meel kastana ay ka raadiyaan. waxa ayna ballan qaadeen qofkii nebiga iyo abubakar soo hela in ay siin doonaan 100 neef oo geela.
ama nolol ama miid ku keena. Dhammaan waxa ay isugu yeedheen nimankii raadraaca yaqaanay, kuwaas oo baadigoobiyay rasuulka sallallahu calayhi wasallam iyo Abubakar halka ay mareen. waxa ay soo raadiyaan raadka rasuulka sallallahu calayhi wasallam. waxa ay soo gaadheen godka ay ku jireen ee qaaru Xiraa, iyaga oo markaa raadinaya. nimankii raadraaca yaqaanay waxa ay dhaheen, wallaahi baan ku dhaaranay halkan ma ayna dhaafin, xitaa waxaa laga yaabaa in ay hadalkeenna maqlayaan, sidoo kale waxaa laga yaabaa in ayna arkayaan. wakhtiga nebigu sallallahu calayhi wasallam waxa uu ku jiifay dhabtii Abubakar ayaa waxa uu arkay gaaladii Quraysheed oo godkii dul taagan. Abubakar aad ayuu u cabsaday, isagoo markaa u cabsanaya in nebiga la soo gaadhsiiyo dhibaato. godka ay ku jiraan ma uusan ahayn god la diyaariyey ama loogu talagalay in la galo, laakiinse danta ayaa ku qasabtay. godka waxa uu lahaa daloolo fara badan. Abubakar Sidiiq radiyallahu canhu ayaa intuu go'iisii jeexjeexay ayuu dalooladii dhammaan ku gufeeyey. meel ayaa u soo hadhay, meeshiina cagtiisa ayuu saaray, isagoo oo markaa ilaalinaya nebiga sallallahu calayhi wasallam. meesha uu cagtii saaray ayaa waxaa ka qaniintay abees. isla wakhtiga Abubakar Sidiiq waxaa qabatay xanuun aad u daran, laakiinse ma uusan awoodin inuu wax dhaqaaqa sameeyo, sababtoo ah dhabtiisa waxaa ku jiifa rasuulka Ilaahay sallallahu calayhi wasallam. Abubakar ilmadii ka dhacsay ayaa rasuulka taabatay. rasuulku sallallahu calayhi wasallam qacantiisa ayuu mariyey, markiiba ugu dambaysana xanuun. gaaladu waxa ay dul taagnaayeen godka ay ku jireen. Abubakar ayaa arkay gaalada oo dul taagan, aad ayuuna u cabsaday isagoo rasuulka Ilaahay u cabsanaya. rasuulku wuxuu ku yidhi, Abubakar ha cabsanin, maxaad u malayn buu rasuulku yidhi, 2 qof oo Ilaahay saddex uu ka yahay, laa taxzan ina allaha macanaa, isaga oo rasuulku kalsooni buuxa ku qaba rabbigii. gaaladii Quraysheed waxa ay u diyaargaroobeen nin kasta inuu ku guulaysto jaa'isadii ahayd in qofkii soo hela Abubakar iyo Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam nolol ama geeri cidda ku soo hesha in la siin doono 100 geela. qof kasta wuxuu diyaarsaday hubkiisii iyo faraskiisii, isagoo oo baadigoobaya. nimankii Quraysheed waxay u kaceen jiha kasta oo magaalada Maka looga baxayay. Suraaqa bin Maalik iyo rag kale oo la fadhiya ayaa waxaa soo maranin. kadib waxa uu ku dhahay, waxa aan arkay 3 nin, waxaan u malaynayay inay ahaayeen Abubakar iyo Maxamed iyo ninkii kale ee daliilka ah ee wadada tusay. Suraaqa bin Maalik wakhtigaa wuxuu ahaa gaal. waxa uu ku dhahay, ninkii been ayaad sheegaysaa, waa nimankii hadda naga sii socday ee xoolaha raadinayay, isagoo oo markaa ka cabsanaya in ay kuwani daba yaacaan. Suraaqa bin Maalik marka uu raggii ay arkay inay ka jeesadeen sheekadii, ayaa isagoo dhuumanaya ayuu baxay. waxa uuna tagay xaafadiisii. adoontiisii ayaa waxa uu ku dhahay, faraskayga ii kaxee oo waa degay dhexdeeda igu xidh. adoonkiisina waxa uu ku dhahay, hubkayga oo dhan ii qaad, adigoo isku toosinaya aqalka, cidna aysan ku arkin. Suraaqa bin Maalik waa uu qaatay seeftiisii iyo warankiisii, dhammaan qalabkiisii dagaalka ayuu qaatay. waa uu dhaqaajiyay isagoo oo markaa raadinaya rasuulka sallallahu calayhi wasallam iyo Abubakar. waxa uuna isleeyahay ku guulaysta 100 geela ee Quraysh ballan qaaday. Suraaqa bin Maalik waxa uu socdaba faraskiisii ayaa turunturooday. kadib waxa uu dhahay, muxuu yahay faraska maanta, maxaa ka siisan kumaan ogeyn. isagoo oo faraskiisa canaanaya ayaa wuxuu lahaa, maxaa dhacay sidan kumaan ogeyn. mar labaadkii ayuu haddana faraskii turunturooday, isagoo oo go'aan ku gaadhay in uu iska noqdo, maadaama ay sabab noqon karto in cadowgiisu ay helaan. halkaa isagoo oo jooga ayaa waxaaba u arkay Abubakar iyo rasuulka sallallahu calayhi wasallam. qacanta ayuu taagay, waxaana uu islahaa leebka la soo bax. leebkii waa uu la soo bixi kari waayey, waxaana uu arkay in amar Ilaahay meeshuu ka socdo. faraskiisii cararayay ayaa wuxuu arkay isagoo oo cagaha hore ay dhulka u galeen. kadib waxa uu dhawaaqay Abubakar iyo nebiga sallallahu calayhi wasallam, isagoo oo leh, rabbigiin ii barya, waan iska laabanayaa, waxna idin gaadhsiin maayeen. rasuulku sallallahu calayhi wasallam rabbi ayuu u baryay. kadib Suraaqa bin Maalik markii uu faraskii lugihii dhulka uga baxay, haddana waxaa gala damac ahaa in uu geeli ku guulaysto.
mar labaad ayuu haddana rasuulka daba kacay isagoo isle yuusan maanta kaa badbaadin. mar labaadkii dambe markii labaad ayuu haddana faraskii lugihii dhulka u galay. waxa uu dhahay saadkii iyo alaabtayda oo dhan qaata oo rabbigiin ii barya inuu farasku meesha iga baxo waana iska noqonaya. rasuulku sallallahu calayhi wasallam waxa uu ku dhahay uma baahnina saadkaaga laakiinse waxaad samaysaa dadka soo socda ee soo dabayaacaya dib u celi. Suraaqa binu Maalik waa yahay ayuu dhahay. kadibna rabbi ayuu rasuulku baryay faraskiina waa uu ka baxay meeshii. Suraaqa binu Maalik markuu arkay calaamaadka meesha ka socda wuxuu dhahay wallaahi baan ku dhaartay Muxammadow amarkaagu waa mid weyn, diinta aad sidaana waa mid dhaba. maalinta aad dowlad dhisto waxaad ii ballan qaadaa in aad imaamusi doonto. qalin iyo waraaq ayuu dhiibay ii qor buu ku yidhi maalinta aan ku yimaado in aad maqaam saraysiin doonto. rasuulka Abubakar wuxuu ku yidhi u qor. nebigu sallallahu calayhi wasallam waxa uu ku yidhi Suraaqa binu Maalik uu ka warran maalintaad xidhato boqorka Kisra taajkiisa. Suraaqa binu Maalik oo jahwareersan ayaa waxau dhahay isla waqtigaa waa uu soo noqday isagoo celinaya dadkiisu dabayaacay rasuulka. waxa uu lahaa aniga ayaa xaggan ka yimaadee cid joogtana ma jirto ee ina celiya. nin waxa uu ahaa laga habaysto oon laga daba hadal, raadraacana aad u yaqaana. waa iska soo noqdeen dhammaan dadkii dabayaacay ee gaalada ahaa kuwaas oo hadalkiisii rumaystay. marka uu gaadhay rasuulku sallallahu calayhi wasallam Madiina ayaa Suraaqa binu Maalik warkii ku faafiyey magaalada Madiina. Abujahal ayuu u sheegay sida ay wax u dhaceen iyo wixii dhex maray rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Abujahal ayaa aad ugu qayliyey isagoo canaananaya. waxa uuna ku lahaa doqon filay ayaa tahay, waxaad iska dayacday fursad aad ku lahayd boqol geela. isagoo oo Suraaqa binu Maalik u jawaabaya Abujahal ayaa wuxuu lahaa abaa xakamin wallaahi low kunta shaahidan liamrin jawaadin istasiixuu qawaa'imu calimta walam tashush bianna muxammadan rasuulun biburhaanin famandaa qawaa'imu. wallaahi baan ku dhaartay Abujahalow haddaad ogaan lahayd xaaladda uu faraskayga ku sugnaa wakhti ay lugihiisu dhulka galeen waxaad ogaan lahayd adigoo oon shakisnayn inuu Muxamed yahay rasuulkaasoo burhaan wata. famandaa qaa'imu cidda ka hortegaysa waa iyo rasuul ilaahay wato. ayaamihii waa ay socdaan, wakhtigii waa iskurayaa. maalin maalmaha ka mid a ayay rasuulka sallallahu calayhi wasallam iyo saxaabaydiisu soo galeen Maka, magaaladii ay ahaayeen isaga iyo Abubakar qaar dhuumasho uga baxa. maalintaas oo aad iyo aad looga soo dhoweeyey. laakiin hadda wakhtigii waa isbedelay, ayaamuhuna waa ay socdaan. hadda rasuulku sallallahu calayhi wasallam waxa uu wataa kumanaan kun oo ciidan ayuu wataa. cid hor istaagi kartaa ma jirto. Suraaqa binu Maalik wakhtigaa waxa uu ku noolaa magaaladii Maka. gaaladii Quraysheed ee rasuulka dhibaatada xooggan u soo geysatay ayaa aad u naxay marka uu rasuulku soo galay magaaladii Maka. waxa ayna malaynayeen inuu ka aargoosan doono. si nebigu sallallahu calayhi wasallam ma uu ahayn mid aargoosta, keliya waxa uu ku dadaalay diinta siduu dadka u gaadhsiin lahaa. gaaladii Quraysheed ee rasuulka dhibaatada u soo geystay oo maalintaas sugayay in la laayo ayaa waxa uu rasuulku ku yidhi antum dalaqaa, fasax ayaa tihiin. Suraaqa binu Maalik waxa uu leeyahay waxa aan soo dhex qaaday dadkii anigoo oo soo dhex jiraya. waxa ay igu leeyihiin saxaabta rasuulka xageed ku socotaa, xageed tegaysaa? anna waan soo jiraya ilaa aan ku soo dhowaaday nebiga. markaa nebiga ku soo dhowaaday ayaa waxaan tusay kitaabkii maalintii aan kala qorannay aniga oo ku dhawaaqaya ballantii maalintii aad iga qaaday miyaad ilowday? rasuulku sallallahu calayhi wasallam waxau dhahay Suraaqa binu Maalik uu soo dhowow, maanta waa maalintii lagu abaalgudi lahaa. Suraaqa binu Maalik radiyallahu canhu waa uu dhowaaday nebiga sallallahu calayhi wasallam, islaamnimadiisana waa uu muujiyey. wakhti yar kadib islaamnimadiisii rasuulku waa uu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam. Suraaqa binu Maalik geeridii nebiga sallallahu calayhi wasallam aad ayuu u murugooday, isaga oo soo xasuusanaya mar walba maalinta uu rasuulka u dilis lahaa boqol geela. maantana haddii adduunyada oo dhan agiisa la hoos keeno in uu uga qiimo badan yahay nolosha rasuulku sallallahu calayhi wasallam. mar walba waxaa soo hormaraysa maalintii uun
maalinta uu rasuulku ku lahaa sallallahu calayhi wasallam Suraaqa bin Maalik oo ka waran maalinta aad xidhato boqorka Kisra taajkiisa. laakiin maanta shaki kagama jiro inuu xidhan doono. waqtigu waxa uu socdaba sabankii Cumar bin Khadaab uu muslimiinta amiirka u ahaa ayuu ku guuleystay in uu xidho taajkii rasuulku sallallahu calayhi wasallam maalinta ugu ballan qaaday. halkaas ayaan ku soo koobaynaa noloshii saxaabiga jaliilka ahaa radiyallahu anhu.